صدقا حما كما way ka dhalanaysayo ila wuxuu qaaday cunto aanu afkiisu wada qaadi karine intii ku soo hadhay wadada raashinka dib ugu celinaya waliba dadkeena Soomaalida aad baa arintaas ugu badanta waana arin dhaqan xumo ah caafimaadka iyo aadaabta labadaba ka hor imanaysa dheefshiidka labaad waa caloosh isagoo si isaga burburan oo ilku aan waxba ka soo qaban baa caloosh ku dhacaya culays buu keenay tira gas tiri baa la wada qaadaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa kamid ah sifada cunistiisa saddexda farood ee raashinka uu ku qaaday inta aanu maydhin ama aanu masixin ayuu leefi jiray dadkana saas oo amray falyalcaqha aw yulciqha qofku isagoo hal leefo ama qof de aad ay suu kalsoon yihiin hawl leefo islaantada u dhibay soo ranaysa xaaji waa inta soo barakadii ay la socotee faraha leef baad oranaysa adigu inaad u leeftana wax dhibaato ma leh marka iyadu wax cunto saas oo kale de qofka iyo caruurtiisa iyo dadka hadda isjecele is-ogole qulubtoodu ay is-ogoshahay wax dhibaato ma laha baabu akli rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay siduu u cuni jiray buu baabi marka baabu sifati akli rasuulillahi wi halka eriga sifa ayaa ku aasan sifada iyo qaabka rasuulku wuxuu u cuni jiray an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu qala wuxuu yiri kana rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu yaakulu midcuna بثلاث أصابع صدح فرود بوح كحرج ويلعق وليف جري يده وقعنتيس قبل أن يمسحها إنتان مسحين كور أخرجه مسلم marka waa qaab kamida kayfiyaadkiyo sifaadkii cunista rasuulku ay lahayd rasuulku alayhi salaatu wasalaam saddex farood buu wax ku cuni jiray waa suulka murdisada iyo fardhaxada saddexdaas shuraaxda qaarkood waxay yiraahdaan waa ida kana ta'amu tamasikan waduu raashinku yahay de wax is haysto oo de saddexda farood ay qaadi karaan laakiin haduu raashinku yahay wax kala daadsan saddexdan farood ay qaadi kareen shantaba waa la dari karaa weeyda طيب arintan waxay ka turjumaysaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu waa cunayo isagoo cunista haari ku ah oo hamuun badan u qaba waxmu cuni jirin qofku hadduu cunadan hamuun badan u qabo oo cuntadu ay qiimo badan la leedo naftiisu aad u jeceshahay waxa weeyaan afar farood baad sheegaysaa ilaa sacab ku buuxinaya oo wuxuu qaadayaa inaan xataa afkiisu aanu qaadahayn dhaqan xumada noocaas sameynaya saa dhaqan xumo kama way ka dhalanaysayo ila wuxuu qaaday cunto aanu afkiisu wada qaadi karine intii ku soo hadhay wadada raashinka dib ugu celinaya waliba dadkeena Soomaalida aad baa arintaas ugu badanta waana arin dhaqan xumo ah caafimaadka iyo aadaabta labadaba ka hor imanaysa in gacantaadii raashinka aad ku qaaday afkaaga aad ka soo celisay raashinkii oo dad ay kula cunayaan ama laga yaabo de inaad hambayso lagaaga dambeeyaba ama kalidaaba aad cunayso inaad dib ugu daadiso iska ilaali wadiga waxaas marka hore inaad afka wada gelin karto aanay gacantaada waxba kaga soo arayn qaado oo iska yare raashinkan faraha badan qofku uu qaadaya wuxuu keenaya xataa isagoo si fiican u calaalin inuu liqo wadamo ka siiyo taasina waxay culays ku keenaysaa qofka dheefshiidkiisa oo dheefshiid kala horeeyo ilaahay raashinka u sameeyay dheefshiidka koobaad waa ilka dadkeena in badan oo kamid ah ilkoodu uga shaqeeyaanba isagoo raashinka si fiican u calaalin hamuunta aynu sheegayna ayaa jirto ayuu dig ka siinaya markaas raashinkii dheefshiidka labaad waa caloosh isagoo si isaga burburan oo ilku aan waxba ka soo qaban baa caloosh ku dhacaya culays buu keenay tira gas tiri baa la wada qaadaya calooshina ila shaqaana iyadu lahayn baa looga tagay waxa laga yaabaa si dhamaystiran u shiidin deetana xiidmaha oo dheefshiidka si dambeeya ayuu raashinki tagayaan iyadoo shaqooyin wali ay ku harsan yihiin oo qolooyinkii hore aan shaqadii ka qabsan deetana markaas laga qaadaya quluunka waxa la yiraahdo noocan gastriga quluunka la yiraahdo ee xiidmaha ku dhaca rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa kamid ah sifada cunistiisa saddexda farood ee raashinka uu ku qaaday inta aanu maydhin ama aanu masixin ayuu leefi jiray dadkana saas oo amray falyalcaqha aw yulciqha qofku isagoo hal leefo ama qof de aad ay suu kalsoon yihiin hawl leefo islaantada u dhibay soo ranaysa
xaaji waa intaasoo barakadii ay la socotee faraha leef baad odhanaysa adigu inaad u leeftana wax dhibaataa ma leh marka iyadu wax cunto saasoo kale dee qofka iyo caruurtiisa iyo dadkaa dee isjecele is-ogole qulubtoodu ay is-ogoshahay wax dhibaataa ma laha sababta u leefaya waa maxay laba arrimood bay ku jiraano raashinku waa nicmo ilaahay marka raashinkii oo gacmaha saarsaaran haddii la maydho ama la masaxo intii gacmaha ku hadhay way khasaaroobaysaa meel xun bay tegaysa bullaacada iyo meelahaasay tegaysa sababta labaadna waxay tahay rasuulku wuxuu yihi fa inakum laa tadruuna fi ayi طacaamikum albaraka garan maysaan raashinkiina ka ay barakadu ku jirto ilay baraka kusoo degto waa sababta rasuulku uu yihi dhexdaa ka cunina halkaasay barakadu kusoo degtahay dadka qaar baa idhaa dee barakadaan doonaya dhexdan ka cunaya la haddaad dhexda ka cunto barakaba soo degi mayso oo barakadii ba arrintaasi ka hortegaysa marka barakadii raashinka ma intaad cuntaad liqday bay raacday ma inta faraha ku hadhay ayay raacday ma intaad meesha kaga tagtay oo inaanad xataa raashin meesha kaga tegin baa fiican laakiin taa macnaheedu ma aha raashinka lagu soo dhigay xataa hadduu badan yahay dikasi marka hore waxaad gurataa raashin si raaxa aad u dhamayn karto adoo naftaada dhibin calooshaadan aan culaysin marka hore guro dadka kuu soo gurayana waxaad tidhahdaa in yar isoo gura in kale haddaad u baahato waad ku darsan karta sheekh ibn cuthaymiin wuxuu odhan jiray marka la weydiiye su-aasha ah haddii raashin badani meesha uu ku jiro barakadiina aan doonayo rabo inaan weelkii murdiyo dee raashinkiina aan ka dhargey maxaan sameeyaa wuxuu odhan jiray haddaad calooshaada doonaysa inaad qumaamo ka dhigto ku daafad dee waxaa meesha yaallaba cun haddii kale dee in kugu filan oo calooshaadu ay qaadi karto cun marka baraka raadin baa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ay ka ahayd iyo ilaalin nicmada ilaahay uu ilaalinayey wallahu aclam wsala اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih waصaxbi waslama tasliima kaiira